أنا أقول له فين وردك بطلع سوق ده أنا أصلا عمله هنا ضيع $9 لواي سوق ده معانا don't worry العجمة حنون لكن أصلا جعله أنا أقول ما بحال واحد دون سوق الحين waxyaabahaas waxaa mataqaanaa labada qofood qadrid it's respect بين تمام أنا لك قصر اللي بجري سوق عندنا سدح بقع عمله ما نخالي في رقفتان سدح بقول دولار قال حلان تقانا غوريga waxa soo adeega raashin iyo cunno iyo waxa soo gadaa waa bixi bac makeup iyo waxa wada dhar ee aaw adeegi wallahi wax samaan waxaana soo jeclaad maxaa ku sameynay makeup أنا تركيا أسكت يابي حمرين موت ودقنا دنك سوق تاجرنا مكتبة بكل waxay arkay raashinka wixii dhan way kala xanaya makeup-keeda iyo waxeedii oo leexanay أنا هذا ما أنك صاب حد يجري أديك دونا فرح جامعتك إيمان يصل يسوي سبحان الله ayaana waxay ka noqotaa ku dhahay ayaana dabeecad ah waxaan sadale markay xanuusto waxa dhigi jiray xabiibtii Allah ina wax soo geeyta wax xiisay ina inta wax ku diro oo haddana wax kala soo geeyta wax xiisay ka caadi jiray السلام عليكم لا فاهم كجرنا طيب حقو شاغه markii ugu horeysay xanuunsana aan soo dhacay magaala akaad waxay ugu dambeysay kan asal socon dayaxay dafad garaafar serious ها هين ugu dambeeyay asxam waxa iskala iimaanay xaq ها ما haddana habeen markii ugu horeysay haddana adaa israacnay dayaxlay kawarnay ما شاء الله very good السلام عليكم دمانتي ما ku jirtiin qadka live ka waa ku jira ha waa iska okisto يا live ku jira dad ha soo galgalana islahayno السلام عليكم warninka nimma waa iska galay laafkiis ani ninkan ma shana sirteen la sheegayna iyo war السلام عليكم دمانتين طيحو إلهي كو دارشي هل أرنا دراتك سوفكين ربتي شيك هذا كهر أو أنت واحد كاي شيكي أيور عيبين يسأتح إيو عدوها تريو ما ياسمو شيء وركم فهينا يدي واحد هوتيل ملايكة أنا كنت جوجنا عيبين يستي واي تريو أيو عيبين يسأتح درد مري أحمد يقول جوجتي ضنا إنا قشتاك عبصد مكتب كاعش هذا لك صح على بالله طلع في الشاس لا وده ما في الشاس لا هذا مري إنه بقدرته أركز هذا عادنا أسكر مسكين ضيحو إله والله أنا جاك عبصد بري أبو مرضم بقى فاريها قال لي هاي أوكي معنا الله بيسمع لكن جبرها كدقن جبر مكدقن دون جبرها عسارية عكاقل السلام عليكم all بليز كثير مكتدا عد كفتنا والله وافديه دي أرتجي ماذا وحنا كم بهذا الرواية لا أدلى يوكا هذا قالكوا ها السلام عليكم دمانتي جبراك دقينا دوسا وانا كنا حبيبتي السلام عليكم وسوقنا جبر رفياني ماذا كوذا دوسا فرعي ومقلو سامو جبر جبر مجرى هي تسي كرو السلام عليكم هاد سوق قراينا وكنا سوق يا سوق قراي الله والله جبر ممكن جرت جبر ninka markuu adig waay moogtahay anoo u shitay anoo naftii keeni jiray qofta la soo kala wareegay shaaka caadi iga sheekeynay qof wax iga sheegay dhac qofta marka asarna xaalada farxiyo dhac asaasi ku dhees sheekadan runta la ka qawana dadka farxiyo wax ka sheegis ma aaminayeen ana ma waxaas ku dhahay war waxba farxiyo ma diina eelayn ana runta la sheegay maad oo meel looga leeyahay marka day haduu qof heesan anoo igu soo jeesanaan faantiin sheekadii ma xasuustaa laakiin wada maalti inta fadhiga fadhido oo adig day baad garaafada sheegay يا أشكت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا دارت أديتني شيء كذا ها رنمين والله ها دراد ما أقولش والله كان جيني أوكي بركة كنا إماد معي بليس وحكاد لا أرنتي أو عاونت ضدكنا إيه أنا ملي عاونها يميا ما هذا أنا كعاون عامد أنا كوفيلن أيضا جملة أنا كسين حتى أنا هذا عاوي هاي ده ما قبل قفتها مصوف الشلا هاي بيب ستة من شيء كم سوى قلنا قبل أن فرحية الله ده هاي كعيدة والله أجل قاعد كذي ده أنا بعيد هلا سو عاوي أني معلقة عاوي عيد dad kan ku jir oo 200 iyo hebelka 300 oo kun ku dhow markino ma aan isoo raacin ciidankayga ma soo raacin no way soo raacayaan adiga you have 72 hasta
I don't know miya ma qaan horta kabray maxamed dhigi jiray diamond miya hebel ma dhigi jiray kabray diamond ali stylish waxas ma dhigi jiray ha diamond stylish waxa ku qoran jirta Facebook gaga ex friend haduu soo duqoobay adiga kabray inta daabar hadan kabray salaan kabray okay macaan baba socod hay okay waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii oo caawinta ahayd soo dhawaada kulligiin waa idin salaamay 1500 oo qof ay daawanayso live ahaan aaba soo aabuday xalbaabkii xil because dadkan soo galaan wali xitaa furahan oo gali damaantiin waa idin salaamay waxaa idinku salaamta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan ka hadlo arintii ahayd caawinta oo caruurta la caawinayay alxamdulillah alshukru lillah way mahadsan yihiin dhammaan dadkii wax soo sadaqaystay caruurta caawinta dharka ciidda loo gaday hadda waxay marayaan tiradooda 50 caruur ah oo aan lacagtooda gacanta ku haynaa alxamdulillah si aan maxaa la dhar ciid ugu gadno maxaa la ii sheegay 50kaas ayaan hadda gacanta ku haynaa marka la fiiriyo dadka noo balansanna waxay gaarayaan sida tirada saxda ee 80 caruur ah oo wali laakiin lacagta aan soo dhicin anaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waa lacagta hadda aan gacanta ku hayno oo maxaa la sida rasmiga aan uga hadli karno waxaa noo balansan ilaa 30 kaleento oo 80 caruur ay gaarayaan waxa la baxsanayana waa wax iska normal ah oo waa $20 ama $30 sadarteed waxaan ka codsanaynaa dhamaantiin inaad ku dartaan maxaa la ii sheegay inaad sii wadaan caawinta caawinaysaan caruurta masaakiinta dadka aanan hore u ogeyn ee rabaan inay hadda ogaadaan waxa waay toobiga rasmiga ah ee laga hadlayo waxa waaye waxa la caawinayaa caruur agoon iyo iskugu jirto sabool iyo barakac oo aan waxba haysanin waalidkoodna aan wax u gadi karin waana taxasuusan kartaa caruurnimo hadda soo martay oo maanta maxaa la ii sheegay joogto maalintii ayareed oo maxaa la ii sheegay for example markii ayareed oo u baahneed wax ku caawiyo oo aad dhar ciid la'aan ama wax noocaas ay dhagaha ku soo dhacay sida aad u jecleed in dhar ciid lagu gado iyo saameynta ay kugu lahayd markii faca ah oo ciidayaan adigana aad ciideynin maxaa la ii sheegay dhibaatada ay kugu lahayd waad garan kartaa inaga marka waxaan rabnaa inaan maxaa la ii sheegay dadka kale rabnaa maxaa la ii sheegay dadka kale rabnaa inaan maanta caawino yaa macaan marka waxaan ka codsanaynaa fadlan inaad caawintaas nagala qayb qaadataan si caruurta maanta walaalaheen iyo caruurta maanta ilmaha u noqon kara ilmaha noo noqon karaan ee aan dhali karno inay maanta noo ciidaan oo ay farxad noogu ciidaan walaalayaal waxaan ka codsanaynaa wax badan ka qabataan arrintaas oo aad nala garab gashaan si ay caruurteen Soomaaliyeed ee saboolka ah ama dhiban inay maxaa la ii sheegay iyaguna nala ciidaan oo ay nala farxaan runtii ahaatee Soomaalida hal dhibo heesta jiro oo hadda ma sha Allah gabar aan isla hadleynay aan ka maqlay afkeeda waana serious Soomaalideen maxaa la dhahaa ii sheeg war xasanay ma iga leexatay walaalo maxaa la ii sheeg hadalkayga inuu ka barnaan karo waqtigeeda kala abuu macaan oo ku soo cabirta xaalad adag ay qabsatay saakay waana ogaa inaan balansaneen marka waxaan ka dhiibaa cudurdaar oo waalan oo insha Allah ku qanci doontid waxaa idinka codsanayaa marka dhamaantiin waxay dhahday oo runna ah maanta maxaa la ii sheeg Soomaalideena waxaan xiiseynaa dadka caanka ah waxaan xiiseynaa dadka riijka ah oo hantida leh dadka hantida leh waxaan jecelnahay inaan ka daba dhaqdhaqno waxaan jecelnahay inaan ka daba orodno waxaan jecelnahay inaan interest ku naadiga kulay laakiin dadka saboolka ah oo masaakiinta ah oo naga hooseeyo maanta Ilaahay xaqiisana khayrkaaga imaan adiguna sharaf ku yeelanaysid mostly ma jeclin oo ma xushmeeyno marka waxaan idinka codsanaynaa maadaama laakiin waan nahay dad naxariis badan laakiin sida caadiga anaga waxaan ku dheeraynaa inaan dadka lacagta leh dadka caanka ah aan interest ku ahaano oo raadino marka waxaan idinka codsanaynaa caruurtaas wax ka ciidsiisaan maanta $20 kan faqiirka ah iyo kan taajirka ah waxba kama dhibeyso waa maanta hal qof ay ciidsin kartaa waana run ahaantii waa farxad marka adiga maanta ay ciidaysid aad og tahay
in cunug kale oo aadan aqoonin iyo sadaqo oo madaxaaga u ciidayo run ahaantii waa farxad aad iyo aad u wanaagsan kumaba sii jirto markaa 10 ama 20 ama 30 ama 40 markaa caydsiisid marka dhammaantiin waa mahadsantihiin leefka ma raba inaan kusii dheeraado maxaa yeelay muhiimadda aan ka hadlayo in la ogaado kadibna ay dadku wax caawiyaan ayaan rabaa dhammaantiin waa mahadsantihiin I love you guys waxaa idinka codsanaya inaad arrintaas nala garab istaagtaan waxaa idinka codsanaya dadka nala caawisaan ciidda wax badanaa ka harsan marka tartiib maxaa la ii sheeg tartiib inaad yacni aad no ila shar la'aan are you crazy baby waa igan xiribta be shar la'aan meel aadi kartaa iska daaya marka waxaan idinka codsanaynaa inaad arrintaas caawinta inaad nagala qayb gashaan sida ilaahay dartiis maxaa la ii sheegay inaa wax u caawisaan inaa ilaahay dartiisa u garab istaagtaan caruurta walaalaheena caruurta masaakiinta caruurta waxaa xitaa insha Allah aan ku soo kordhin doonaa ikraan waa xaasidad way taqaanaa umana baahna inay qof noo shaqeeyo xiyuubti ayada ha qabato wax kasta wuxuu yiri 1300 oo qof daawanayso fiirsanayso calaa qof hadduu 25 bixiyo wax badan ee qaban kartaa of course dadka way ku taada kala hal mid halo axmedna waa ku salaam diiniyare walaalkii qaali ee jeclahay waxaa idinka codsanayaa muhiimadda qof walba inuu ka hadlo muhiimadda waxay tahay qofku waa inuu ama wax dhiibaya ama qofku waa inuu leeyahay maasha Allah howl wanaagsan wada keep going haddii kale qofku waa inuu ka aamusa dadka maalaa yacnigu hadlay dadka caaytamana I don't know waxay ka wadaan mana aha wax wanaagsan ilaahay idin soo wada hanuuniyo dhammaantiin waa mahadsantihiin muhiimadda aan ka hadlayo maxaa la ii sheeg waa intaas waa mahadsantihiin dhammaantiin I love you guys bye